aad war-saxaafadeed ka soo saaray ama codkooda minaha ku biiriyey in ay ka xun yihiin waxyaabaha ay yuhuudda samaynayso odayaasha Soomaaliyeed dadka laga dambeeyo talada Soomaalida in aad ka gorfeeyo mid Soomaali waa hal diintooda waa hal nabigooda waa waahid nabigooda waa hal allahooda waa waahid alla kala ma qabno yuhuud ha dhacdo Soomaali mid Soomaali ha midowdo sidoo kale waxaa banaanbax ka qayb galay ama si weyn darankooda u muujiyay abwaanada kuwa shirba iyo dad aad darankooda u muujiyay sidii ay yuhuudda iskaga dhicin lahayn buraarujinay sameeyay waliba xitaa iyaga oo shirbaya waa kan markale la daawada weli isla banaanbaxa iyo mawduuca Somaliland iyo barnaamijkeeda aan ku sii jirnay Israa'iil waxaa si weyn u cambaareeyay sheekha caalibka ee Sheekh Umar ila ay gaadhaan odayaashooda ka mid ah inuu yiraahdo shidadka Hargeysa waxaan ku magacaabi doonaa Tel Aviv iyo Haifa wiilashadana waxaan u bixin doonaa Benjamin Netanyahu adiga muwalaad inta ka badan xageed ka keenay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ahay Mr. Klimentani haddii markaa kugu horeyso aadna soo booqato waad ku maasan tahay booqashadaada customer care hadaa taani waad ku maasan tahay joogitaanka fadlan YouTube-kayga Facebook-kayga iyo TikTok-kayga follow soo dhaha subscribe saara 24 saac la soo dhaafay baraha bulshada waxyaabaha ka cusub ayaanu idin la wadaagi doonaa wararka xaaladda wadanka iyo wixii soo kordhay maxaa la qabtay maxaa maqan maxaa la rabaa in la qabto waxa soo dhan waa idin ka dabageyn doonaa sida aad la socotaan haddii ay idin ka dabageeyo isbuucan ama isbuuci la soo dhaafay labadii isbuuc la soo dhaafay waxaa baraha bulshada aad u gilgilay arinta Israa'iil iyo Somaliland social media haddii aad furto TikTok iyo social media oo dhan YouTube Facebook wax kale ma laga hadalhayo waxa laga hadalhayo oo kaliya arinta Israa'iil iyo Somaliland taas oo Soomaali badan ay aad u diidan yihiin yuhuud in ay aqoonsato Somaliland arinta markii Israa'iil iyo Somaliland u dhaxayso ummadda Soomaaliyeed aad ay u diideen haddii ay culimo yihiin haddii ay nabadoono yihiin haddii ay yihiin dhalinyaro haddii ay yihiin abwaano haddii ay yihiin maamooyin qof walba oo Soomaali oo af Soomaali ku hadlaya arintan yuhuud waa uu ka dhiidhiyay gobol kasta tuulo walba magaalo walba meel kasta uu joogo maanta waxay la wadaagi doonaa hadduu Ilaahay nafta nagu siimo banaanbax ka dhacay magaalada Muqdisho banaanbaxaas oo lagu soo horjeedo aqoonsiga ay aqoonsatay Israa'iil Somaliland banaanbaxaas waxaa aad war-saxaafadeed ka soo saaray ama codkooda minaha ku biiriyey in ay ka xun yihiin waxyaabaha ay yuhuudda samaynayso odayaasha Soomaaliyeed dadka laga dambeeyo talada Soomaalida in aad ka gorfeeyo wadaatana fiirsada qofka nabadoonnada waxgaradka Soomaaliyeed oo guryahooda iyo fadhigooda dhaqan lagu imaan jiray ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 12 bishii koowaad 2026 iskugu soo baxay magaalada madaxda caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho duubabka nabadoonnada Soomaaliyeed waxay si adag u cambaareynayaan go'aanka Israa'iil ay ku sheegtay aqoonsiga gobolada waqooyi ee Soomaaliya ayagoo ku tilmaamay tilaabo gardarro ah sharci darro ah isla markaasna dagaal qaawan oo lagu soo qaaday midnimada iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya odayaashan hadda u jeedaan waxay ka dhiidhiyeen in ay yuhuudda ay aqoonsato Somaliland ay isku sheegto dawlad ka madax bannaan Soomaaliya in ay tahay taas oo aysan marnaba aqbalin waxayna sheegeen in yuhuudda ay duulaan ku tahay dhulkeena Soomaaliyeed marnaba aysan aqbali doonin sidoo kale waxaa banaanbax ka qayb galay ama si weyn darankooda u muujiyay abwaanada kuwa shirba iyo dad aad darankooda u muujiyay sidii ay yuhuudda iskaga dhicin lahayn buraarujinay sameeyay waliba xitaa iyaga oo shirbaya waa kan markale la daawada
weli isla banaanbaxa iyo mowduuca Somaliland iyo barnaamijkeeda aan ku sii jirnay Israa'iil waxaa si weyn u cambaareeyay sheekha caalimka ee Sheekh Umar asagoo daba joogo ama arintan uu wax caqli gal ah inaysan ahayn ku tilmaamay asagoo si toos ah jawaab toos ah u siiyay ninkii ay dhihi jireen boqor buurmadow oo sheegay in uu Netanyahu tiimkiisa ay garoomada ay ilmahooda ay ugu magacdari doonaan su'aashaas oo si toos ah ugu jawaabay sheekha caalimka ee Sheekh Umar balal dhageysta shidadka hargeysa waxaan ku magacaabi doonaa Tel Aviv iyo Haifa wiilashadana waxaan u bixin doonaa Benjamin Netanyahu adiga muwaalaad inta ka badan xageed ka keenay Allah tabaaraka wa ta'ala nusuusta quraanka iyo sunnada gaar ahaan quraanka qaybihii ugu dambeeyay soo degay iyo qaybihiisii horeba ee ka hadlaya gaala in laga wali dhigto ka wali dhigashada gaaladu markay ugu yartaa waa dambi weyn sida marka aad la socotaan sheekhu wuxuu sheegay in waxaas wax aqli gal ah aysan ahayn yuhuud oo walaalo noqdaan bahasha ay tuumaad tahay boqor buurmadow hadii codkiisii hore maalinka ugu horeeyay aqoonsiga lagu dhawaaqay hadaa idin maqashiina waa kan inaanu Haifa iyo Tel Aviv iyo u bixino shawaaricda iyo suuqyada magaalada wiilasheeda Netanyahu iyo hadii aan la leeyahay aan raga la midka aanu bixino waxaanu leenahay ninba tacabkiisu amaaliye nin waliba wuxuu gashada Somaliland ayuu ka waa oday sida asaga uu sheegtay in uu boqor buurmadow uu yahay Somaliland oo dhan afyaan uu yahay ama odayaasha la ixtiraam uu yahay haddana wuxuu sheegay in Netanyahu iyo tiimkiisa ay garoomada iyo jidadka iyo ilmahooda wax walba wanaag oo qof bini'aadan loo qaban lahaa ay u qabanayaan iyagoo iska buusaya ama iska riixayo Soomaalinimo iyo dadnimo iyo qofkii muslimnimada ay ka dhaxaysa maanta waxay taayihiin waxaa nooga fiican yuhuuda haddii isla banaanbixi ayaan ku jirnay waxaa si aad ah ugu soo horjeestay aqoonsiga Israa'iil ay sheegtay ee Somaliland dhalinyarada Soomaaliyeed kuwooda bajaajleyda halkan waxaa idinkaga muuqdaa afayeenka bajaajleyda ama gudoomiyaha bajaajleyda oo calanka yuhuudda dhulka ku jiida asagoo aad uga careysan waxyaabaha ay yuhuudda ku kacayso bal asagana waa kana daawada weli isla banaanbax ayaan ku jirnaa maamooyinka Soomaalida kuwa talada looga dambeeyo ama guriyaha maamula ama wax kasto ay soo jiidiyaan la qaato ayaa banaanbaxa qayb ka ahaa iyagoo dareenkooda muujiyay iyagoo sheegay in aysan marnaba aqbali doonin yuhuud inay aqoonsid Israa'iil waa kan kartaan fagaaraha maanta la iskugu soo baxay ilaa Shangaaniyan dhaafnay Boondeerna dhaafnay waxaan u dhaafnay qadiyadayna gadan mayno mana ka yeelayno Somaliland waa goonin aan baxna madax banaan ma jirto Israa'iil oo meelay aadala ayaa annaga noo timid haday xaalka iyo ummadda go'aanka ku bixi weyso waxaynu nahay wadani waa difaacayna dalkeena 24 saac waa u dhamaanaynaa waa shaqaynaynaa maanta saa u soo baxnay ilaa ay ka baxaan maalin walba waa banaan bixinaa ما شاء الله maamooyinka aad u fiican yihiin waxay sheegeen in dalkooda ay difaacan doonaan yuhuud iyo xulafadeena aysan marnaba ka aqbali doonin heerka la kala gaarsiiyay bulshada ku nool koonfur iyo bulshada ku nool waqooyi waxa ay maraysaa sida tan in qof muslima oo Soomaaliya lagu bedeshto qof Israa'iiliya waatan su'aal baan ku weydiinaya su'aasha waxa koranaysan nin reeq qadweyn oo reexamar ah iyo nin reer Israa'iil ah labada dil go'an la mid guursan leh بسنك ده إسرائيل ونقرسنا ها إسرائيل فرودر ده وين قنصدينا كمان sida iyaga muuqato waxay door bidaysaa qofka muslimka ah Soomaaliga in ay ka door bido qofka Yahuudiga waxa la weydiiyay sababta uu doortay maxay tahay waa uu aqoon waxay sheegaysaa waa aqoonsi oo kaliya wax kale oo maanta wanaago oo ay ku sheegi karto Yahuudi ma jiro
haddii aan halkaa ku gabagabayno banaanbaxyadii magaalada muqdisho ka dhacay dhiidhintii dhalinyarada ay ka dhiidhiyeen odayaasha soomaaliyeed abwaanada maamooyinka iyo waxyaabihii kale 24 saac dhacay haddii aan mid iyo laba kale aan kusii darno sida aad la socotaan madaxweynaha Soomaaliya ayaa la qorsheynayaa in usbuucyada soo socda weliba maalinka Sabtida ee ugu soo aadan in uu ka dhigi doono magaalada Laascaanood sida halkaa idinkaga muuqato wafdi uu u yahay horumaris ahaan ayaa loo diray magaalada Laascaanood waxaana hogaaminaya wafdigaas taliyaha booliiska Generaal Asad Diano weli barnaamijkeen 24 saac baraha bulshada waxyaabaha ka dhacay dhacdooyinka ayaan ku sii jirnay markii ay maqashay Soomaaliland in uu madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud uu imaan doono Laascaanood qayladaan meel kasta ay u daan waxa ayna sheegay in ay arintaas dagaal ay ka xigaan marnaba aysan aqbali doonin sidoo kale waxay dawladdu ku eedeeyeen in imaatinka uu imaanayo Xasan Sheekh ay fuusto weyn ay tahay marnaba aysan aqbali doonin ninka halkaas ay kaga muuqdo waa wasiirka gaadiidka ama wasiir ku-xigeenka gaadiidka ee Soomaaliland asagoo sheegay in uusan marnaba aqbali doonin imaanshiyaha dawladda ay imaanaysa ee Laascaanood sheegay Xasan Sheekh inuu ku imaanayo Laascaanood waa galdaro ودولان وداندانسي وفيد مابور ودولان قاون وانجينا اللي سكو توستوسين واحتروا طولك يوضو يدقالي ذا ماها وفيد مد أبور waxay tilmaameen in ay arintaas daadaansi ay tahay aadna ay ugu xun yihiin imaanshaha uu imaanayo madaxweynaha Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud wasiir hore wasiir Buuni ayaa isagana sheegay imaatinka uu imaanayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Laascaanood in arintaas tii uu noloshiisa ku soo gabagabeyn lahaa ay tahay waxa uu sheegay sida tan marka arin la gabanaya ma Xasan haduu yimaado wadu malagiisi kara maxaa ku soo beegay hadda inuu Laascaanood miyir beel baa ku soo beegay uu miyir beeshay waa fashil wuxuu ka fikirayay sidoo xamar usii joogi lahaa intaas haddii aan ku soo gabagabayno 24 saac la soo dhaafay baraha bulshada waxyaabaha ka dhacay ama social media waxyaabaha ka dhacay dhacdooyinka maalinlaha ay soo tarayo haddii halka ku joojino aan usii gudagalno imaanshiyaha uu imaanayo madaxweynaha Soomaaliya magaalada Laascaanood iyo waxa ay ka bedeli karto arinta u dhaxaysa Israa'iil iyo Soomaaliland haddii aan usii gudagalno falaqeynteena ra'yigeena aan ka dhiibano siyaasadaha qaar ama warbaahinta qaar waxay qoraysaa haddii madaxweynaha Soomaaliya uu yimaado Laascaanood waxa ay leeyihiin warbaahinta qaar waxa meesha ka bixi doona Israa'iil iyo tiimkeeda in ay ka laabtaan aqoonsiga ay sheegeen ee Soomaaliland sababaha waxaa lagu sheegay wax hadda hiidku u gaarsiisan yahay oo Soomaaliland u qeylinayso oo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ma imaan karo ay u leedahay in ay qayb kamid ah ay tahay walaaca ugu badan oo hadda ay muujinayaan sidoo kale warbaahinta qaar waxay qoraysaa oo ay leeyihiin in ciidamo badan xuduudka la keenay ciidamadaas oo la rabo in Xasan Sheekh iyo tiimkiisa qashqashaad looga sameeyo walow warkaas uusan war jira ahayn marka waxa la leeyahay haddii madaxweynaha uu Laascaanood ka dago ciidamo badan halka la geeyo oo madaxweynaha isku soo sawiro khudbad uu ka soo jeediyo waxa yaraanayso Soomaaliland buuqeeda xiisada ay social media ka hayso in ay yaraato waxaana laga yaabaa Israa'iil iyo Mareykanka iyo tiimkiisa in ay ka fiirsadaan aqoonsiga ay sheegeen maxaa yeelay haddii madaxweynihii dhamaa ee Soomaaliland uu Laascaanood ka dagay Yahuudi iyo barnaamijkeedan wax meesha u yaala ma lahan sool iyo sanaag haddii ay ka go'een cid dhihi karta ma jirto in ay ku dhiirato in ay Soomaaliland ama hal gobol oo kaliya in ay dawlad madax banaan ay noqoto marka arintaas warbaahinta oo dhan isha ku hayso kuwa ajaanibta iyo kuwa Soomaalida isha ayaa lagu hayaa safarka madaxweynaha ee maalmahan ugu soo aadan sida ay warbaahinta qaar ay qorayso ee Sabtiga ugu soo aadan marka waxa la leeyahay haddii madaxweynaha meeshaas uu ka dago Soomaaliland aqoonsigeeda waa u dhamaaday wax hadda ay la qaylinayaan oo ciidamo ay soo dejinayaan oo wasiir Buuni u qaylinayo oo wasiirka gaadiidka u qaylinayo oo saas ay la qaylinayaan waxa la leeyahay walaac aad u weyn ay ku haysaa marka arintan waa loo baahan yahay maadaama Soomaaliland fuusta ay soo riixday ayaga nafsakoo in fuustka lagu sii riixo oo madaxweynaha meesha uu ka dago oo dowladtus uu sameeyo ka bacdina ay la soo xirigeliyo ama la soo tashkiiliyo ama sidii lagu keeni lahaa laga shaqeeyo awdal iyo barnaamijyaadka kale ee meelahaas ka taagan
arrintaas marka aad ay bulshada Soomaaliyeed sida ay warbaahinta ay ku qorayaan waxay leeyihiin waan soo dhaweynaynaa in uu madaxweynaha Laascaanood ka dego. wufuud badan iyo madax badan iyo wasiiro badan iyo siyaasiyiin badan ayaa ka degay iyo xildhibaano badan si ay madaxweynaha maalinka uu imaanayo ay halkaa ay ugu soo dhaweeyaan. imaatinkaas ayaa wuxuu bedeli doonaa isku socodka ama jadwalka aqoonsiga ay Soomaaliland muujadaha siyaasadeed iyo waxyaabaha dadka ay hadalhayaan waxaa loo wareegi doonaa sida ay dadka qaar ay sheegayaan dhanka iyo imaatinka madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagaayo Laascaanood. bal wixii ka soo kordhay arki doonaa. waxaan ahay Mr. Kilmatani. haddii aad hal subscribe iyo hal like ay ugu darto aad iyo aad ugu mahadsantahay. guuleysta Soomaali baa leh. marnaba aqbali mayno yuhuud iyo xulafadeeda in ay saldhigato Hargeysa iyo erideeda. guuleysta Soomaaliya. had iyo jeer waxaan soo gudbinaa waxyaabaha dadka ay xiiseeyaan sida wararka, sheekooyinka iyo madadaalada. haddii ay Soomaali naga codsato video gooni in aan ka soo hadalno, heegan waxaan u ahay in aan ka soo hadlo videogaas. hal subscribe aad noo saarto iyo hal follow aad na soo dhahdo waxay nagu dhiirigelinaysaa in aan wax fiican oo qurux badan aan soo gudbino. fadlan ha ilaawin in aad follow na soo dhahaysiin share gareysid. guuleysta.